Uncovering history, protecting identity. قرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاة السلام. وعليكم السلام وكا خالد ولا خير هذه عليكم السلام. إن هذا هو هواي أنت دمت الله ونحرست علينا شعور تقول قيب سننا إن سوماليا جيس إحنا إن تعسيد وطالع تعسيد أنا كلي بيدي طالع أنا قدر إنه طالع إن مسؤولية أنا قدر من سعران تاي جوري أن إحنا لقى مرجون إن مجرد جوري ولا مرجع طالع يري يوقف كستو مسكاري تي جوكتو أو حجرتو سومالي أو دمير له مرجع وقول قيب سنة marka waxaan leenahay walaal macaan oo sabir iyo Allah ka siiya baayo alxamdulillah shukr maanta waa la soo qabtay adeerna waa dhageystay idaacaddan ka arkay wuxuu dhahay waa la isla duugaya taasaan xoojinayna in la isla duuga rabnaa in micnaha la kala duuga hataa marabno micnaha in la suga hataa marabno waxaan rabaa familku inay go'aankaas ay ku adkaystaan maadaama ayaga anaga ay naga mas'uul yihiin go'aankaas ay ku adkaystaano wallahi waan ku farxa markaan dhageystay aabo oo dhahay micnaha in annaga waxaan ku qanacsanahay ninkaas annaga in gabadheen la diido waa go'aan saliiba waay go'aan farxad leh waay Soomaalidu waxa waay musuqmaasuq ay taqaana siwiilka iga hore uu sheegay isdaba marnay taqaana laalaabay taqaana cadaalada loo dhawaado qofkii qof micnaa dilo waa in loo dilaa waay waa din islaamka qofkii waxay qabtana waay micnaa lacag wax ma tarayso waxa waay qofkaas tomorrow qof kale uu goynaa hadana waa qof xanuunsan waay kaan kara waay dadka in laga dhax qabtaa fiican weligeen waxaan aragna ma weligeen mana arag markiina adeero sabir iyo abaalaa kaasiyo een waa ku dareemi karnaa qulubtaada maartay qalbigaaga waxay tahay jirkaaga micnaha aabaxay si gardarro u baxay si silac u baxay een waana kula qaybsanana xanuunkan ku leeyahay جزاك الله ألف خيرا ولك خالية هذا ما سنتين أفتح والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أبو معاني والله I'm very emotional runtii ma hadli karo laakiin waxaa ku sheegaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay wala tamutunna illa wa antum muslimun walaashaada waxay dhimatay muslimada ninkaana had dhinta asagoo murtado gaal ah leeyahay Ilaahay wuxuu dhahay man qatala mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam marka waa laba ruux oo kala fog walal macaane hadda gabdhaheena Soomaaliyeed walaalaheena representative kuman inaan noqotaana rabnaa in ninka cadaaladda ka hadlo bari ka maalin waxa dhici doonto in gabar kale Soomaaliyeed dilo hadii walaasha loo xaqeed heli weydo gabadha kale xaqeed in heli weydo oday Soomaaliya maanta meesha la dhigay marka buu wallahi marka buu saas waaye insha Allah taala xaq waa heli doonaa laakiin waa in isku dubnaada gabdhaha Soomaaliyeedna ha kacaan ninkaas tiirka hal geeyo wallahi إن شاء الله تعالى وحارجينا يا عدالة دمارتا إني جواراسي ونقطوها بلا سوماليات جوادي أقدم بيسي حنون مرتا إني إيضا خندونت هديني كان مانتا لعفيو أما دير لقاتو بريوحا إيمانيسو توانان أساقو كلا إني صوبحانا هبلا سوماليات إيه ديلان إيه دهان أوديالا نقدم بيو geynaya diyo maanta waxay arkayaan ina diyo qaadan doona in kalenta ay arkayaan lagar qabaha in la geeyo tiirka wax kale kuma qanceen tiirka maalintii la geynayana wajigiisa inuu asaga yahay oo sax ah ma ahana wax kale kuma qanceen Soomaaliya waxa jirta waa ogtihiin in qof inuu wax dilo oo kalenta oo wajiga la qariyo laakiin saanaga waxa ku qancayna maalinkii tiirka la geynayo asaga xaqiiq ah in la toogto in qofka inta loo soo qabto oo meesha la keeno oo la dhaho waa la toogtay ma yeeleen anaga waxa ku hubsaneena markii la toogto xaqiiq wajigiisa xaqiiqsano gabadheena markaas aasaneena anaga markii la toogto xanuunka uu dareemo oo nafta ka baxdo markaas Luul Cabdulaziz Maxamed markaas anaga ka soo qaadanayna isbitaalka markaas anaga godkeeda ku ridanayna markaas uu qalbiga Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed ee hooyooyinka Soomaaliyeed markaas qalbigooda markaas ayuu degi doonaa insha Allah taala sababtoo ah
qofka markuu kansar gacanta uu ka galo haddii lagu daayo gacantaas kansarka waa uu sii faafaa kansarka waa uu sii soconaa jirka dhan uu kusii faafaa kansarka waxa waaye sidiis waa in la gooyaa daawadiis waa in la gooyaa haddii la sii daayo ninkan ummadda wuxuu ku naqanaa anagu hadda wax naga dilay berina wuxuu dilaya walaashiisuu dilaya beri familkiisuu laynaya ninka xaaskiisa wax kaga dhow ma lahan xaaskiisa iyo cunugii caloosha loogu siday wuxuu kaga dhow yahay ma lahan qaraabadiis war hilibkiisa waaye iyo jirkiisuu dilay wax ninka wuxuu dilay xaaskiisa oo maxaa waaye jirkeeda ku aamintay oo calooshii ugu siday cunug 6 bilood ah oo wiil iyo gabar wuxuu yahay Allahu a'lam ugu sidayuu dilay marka adigu ku naxariisana Ilaahay kugu dhaari hadduu dad kale uu dilay laha gooni laakiin ninkii qofkii ugu dhawaa oo qaraabadiis ahaa caruurtiis caloosha ku siday dilay adiga naxariis ma ku haay ninkaas Ilaahay kugu dhaari ninkaas hadii dhulka lagu sii deeyo maxaa sugeynaa dhul gariir inuu noo dhac ma sugeynaa cadaabka Ilaahay inuu noo soo degma sugeynaa war Ilaahay ka cabsano odayaasha bacda madowda hal iska qabto odayaasha bacda madowda markii gabar la kufsado oo maxaa waaye dhahay gabadhna loo guuriyo hal iska qabto markaas cadaalad waa iimaanay markii qof laga dilo ha ku qancin shilimaad lagu siiyo ku qanac tiirka in lagu geeyo cadaalad qofkii qof dila hala dilo waa qofkii dhag gooy waa in dhagta laga gooyaa qofkii gacan ka gooy waa in gacanta laga gooyaa kitaabkeena ku naqano diinteena maxaa waaye oo wanaaga badan oo wax walba ku jirta cadaalad ku jirta waxa loo soo dejiyay qofka markuu wax dilo waa in la dilaa markii lagu dhahay xalka ku jiro ummadda inay ku kala badbaadaan la rabaa laakiin si haddii ma aragto qof wax dilo oo la sii daayo lacag laga bixiyo bari la sii daayo wixii waa sii socona dhibaatada waddankeena hadda maanta ka socoto sababta taagan ay ka mid tahay qabiiladu waxay isku laynayaan tanaya sabab u ah dhakhaatiirta iyo dadka wax galka ah aqoon-yahanada wax loo laynayo tana sabab u ah qofka markuu wax dilo haddii tiirka la geyn lahaa nin walba wuxuu dhihi lahaa warniyo haddii aan wax dilo waa la idilaa warniyo maxaa waaye nafsadeeda maxaa waaye haddii aan wax gooyo waa la idilaa uu leeyahay laakiinse haddii qof wax uu dilo gadaal la marsado meeqaa dhimanaysa hal qof waa wax dilay 100 qofood 50 qofooda dhimanayso anigan waa ka soo horjeedaa qof aanan wax geysanin in la dulmiyo Soomaaliya hadda waxa ku soo badatay qof wax dilay qabiilkiisa loo dilaa ama walaalkiisa loo dilaa war walaalkiisa kuma dulmin walaalkiisa kuma dilin walaalkiisa wax kaama dilin qabiilkiisa wax kaama dilin ninka wax ka dilay waa shakhsiga wax dilay hala soo qabto tiirka hala geeyo taasina ummadda ku kala badbaaday diiniyan taasana wanaagsan ninkii wax geysto asaga laga gooy ma ahan qof kale lagu ma gooynaay ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu mahad celinayaa kun jeer iyo ka badan waxaan ugu mahad celinayaa sharaf iyo karaama idin haynaa madaxa inoo saarantii sababtoo ah dagar qabihi in la soo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto qabiilkiisa iyo dadkiisa ugu dhawaay inay soo qabtaan waxa keenay idinka u sabab ah dadkiiran hadda meesha jooga 141 qof meesha saarna u sabab ah sababtoo waxaad u sabab tihiin inaad faafiseen inaad dagar qabaha meel walba kaga daba gasheen inaad sawiradiis meel walba aad geyseen maantana sidii si la mid ah ma aragtaa cadaaladdan saasan ku raadin karnaa beri markii walaasheena la dulmiyo beri markii lagu dulmiyo adiga beri walaalkeen markii la dulmiyo saan hadaan ugu wada istaagno dhalinyarteena dhammaan gacmaha ay soo wada qabsano dalkeenana waa dhisan karnaa dad jirana waa naqan karnaa damiirkooda uu shaqeynayo ummadda Soomaaliyeed maxaa waaye dhan waa difaaci karnaa waxaan ku difaaci karnaa qaab wanaag ma ku difaaci karnaa qabyaalad Soomaali waxay mid ku naqan kartaa maxaa waaye hal jir dad wada dhashay oo hal maxaa waaye diin wada leh ayaan nahay marka maxaa waaye waxaan waajibkana saaran dhamaanteen waxa waaye waa inaan hal wado ku soconaa qabyaalada aan iska dhaafnaa reer hebel yaanan dhihin kii wax dilo walaalkaaga hadduu yahay ama walaalkayga hadduu yahay inaan soo qabano anagoo wada jir aad tiirka geeno taasaan ku wada badbaadinaa ilaahayna taasuu noogu naxariisanaa marka taasaa ugu baxa
جزاك الله خيرا. Subscribe for more.